السلام عليكم وردقدقة وحد صود عي waxa uu sheegayaa in xisbiga diyaaradahooda droniska ay si toos ah weerar ugu qaadeen gurigii Netanyahu uu ka deganaa meesha loo yaqaan Kaysara waxa la soo warinayaa in gurigii Netanyahu ay diyaaradaasi droniska si toos ah shab iyo wash oo ay u tiri ilaa iyo hadda lama oga xaaladda odaygii oo faarkii Netanyahu ahaa laakiin waxa la soo warinayaa baraha bulshada qaarkood ay sheegayaan in dhaawac uu soo gaaray dhanka kale xafiiska Netanyahu ayaa waxa uu beeninayaa in Netanyahu xilligaasi uu gurigaasi uu ku sugnaa ama uu dhaawac uu qabo xaaladda waxa la arkayaa gurigi Netanyahu oo ambulance badan ay joogto waan idin soo dhaweynayaa ambulance badan ay joogaan halkaasi kala cararkii ugu xumaa uu ku jiro laakiin dadkii deegaanka dariska la ahaa Netanyahu dhamaantood waxay qirayaan in gurigii Netanyahu uu ku sugnaa diyaaradda siday u socoto meel kale inaysan taaban gurigii inay shabtiri horta maanta warkaas ayaa lidin hayaa dhanka kale warbaahinta Israa'iil ciidamada militariga Israa'iil ayaa waxay diideen in markaasi warbaahinta ay muuqaalada ama ay ka hadlaan arinta oo faarka Netanyahu weerarka lagu qaaday waa sida markaasi ay soo warinayaan waa Al Jazeera ay soo xiganayso idaacadaha Israa'iil ka soo xiganayso militariga Israa'iil ayaa ilaa ay hadda diidan in saxaafadda ay tabiyaan gaar ahaan kuwa Israa'iil in ay xaaladda Netanyahu gurigiisa iyo sida isaga ay wax u gaareen in ay ka hadlaan ilaa iyo hadda xaqiiqda rasmiga ah lama oga laakiin waxa la xaqiijinayaa oo dadka dhan ay ogyihiin diyaaradii droniska xisbiga ay soo tuureen sida ay u socotay inaysan ka labalabeen sida u socotay u dhaysa shabdhac ay tiri guriga oo faarkii Netanyahu inay ku jirto taas waa la hubaa ayaa la leeyahay inkastoo xaqiiqda in isaga ay wax gaartay in kale ee aan la ogaan karin maadaama Israa'iil mar walba aan la soconno markii iyaga ay wax gaaraan ay qariyaan dhanka kale waxa la soo warinayaa habeenkii xalay ilaa iyo maanta diyaaradaha droniska ay leeyihiin xisbiga in ay markaasi duqeymo xoogan ka geysanayaan Haifa iyo sidaas oo Kaysara meesha hadda Netanyahu uu degan yahay iyo meesha lagu magacaabo Carmel dhamaantood diyaaradahaasi lagu arkayay marka run ahaantii habeenkii xalay ay ugu darnayd Haifa waxa la soo warinayay in xisbiga diyaaradahooda droniska wixii habeen maalin dhexdaas dhacay wax ka daran inay dhaceen inkastoo warbaahinta Israa'iil ay qarinayeen wixii xalay ka dhacay gudaha Haifa sidaas oo kalena Tel Aviv habeenkii xalay waxa ka jira ayaa leeyahay kala cararkii ugu xumaa run ahaantii waxaan la soconaa in Israa'iil ay hadda si toos ay ugu bareertay inay xasuuqdo dadka gudaha magaalada Gaza ku nool iyaga oo waliba la soo warinayo ama aad arkayseen muuqaalada qaarkood ee warbaahinta aad ka arkayseen dadkii oo si toos ah ama si wadar ah warbaahinta caalamka iyo mobilada lagu duubayo in dhulka la dhigayay laakiin hadda warka ugu weyn ee warbaahinta haysta wuxuu yahay guriga Netanyahu oo diyaaradan si toos ugu dhacday ilaa ay haddana warbaahinta dhan ay tabinayaan lama oga laakiin Israa'iil warbaahintooda waxay leeyihiin ama sida xafiiska Netanyahu uu soo warinayo ama kanaalka 12 Israa'iil uu soo warinayo wuxuu leeyahay xilliga diyaaradda ay ku soo dhaceysay halkaasi guriga Netanyahu xaaskiisa isaga labadoodaba ma aysan ku sugnayn dhanka kale ciidamada Israa'iil ayaa qaati billahi ka jooga habeenkii xalay ilaa ay saakadaan diyaaradaha droniska ay Hizbullah ay leeyihiin waxa la arkay caka diyaaradaha droniska oo isku dayayaan militariga Israa'iil ay u adeegsadaan helikabtarada in markaas ay ku soo ridaan diyaaradaas helikabtarka waxay eriyanaysaa mid kale diyaarad dronis halkaas maraysa u jeedaan waxay doonaysaa inay soo rido laakiin diyaaradaha ayaa waxay ahaayeen kuwa aad u badan saad u jeedaan oo wata diyaaradaas droniska u jeeda Soomaa waa ay badnaayeen laakiin waa ay ka baxsatay fashilkii ugu xumaa ayaa waxa uu ka taagan yahay nidaamkoodii difaaca ay sheegayeen Israa'iil wax badan oo adduunka ay ku faani jireen ayaa xisbiga beeniyay xisbiga diyaaradahooda droniska iyo gantaaladooda waxay si tartiib ah ugu soo hoosbaxayaan nidaamka difaaca Israa'iil diyaaradan droniska sidaad arkaysaan waxa ereynaya diyaarad helikabtar ah laakiin run ahaantii xaaladda laga soo warinayo gudaha Israa'iil waa xaalad aad iyo aad Israa'iil ay u yaaban tahay dhanka kale sida Al Jazeera ay goor dhaweyd ay soo warinaysay waxay sheegtay in diyaaradan droniska ah ee in si toos ay u abaartay gurigii oo faarkii Netanyahu welibana aagan Kaysar laga maqlay
dhawaq iyo jug aad u culus oo dadkii deegaanka badankooda guryahooda ay kasoo baxeen kadibna ay ogaadeen in gurigii oofaarkii Netanyahu holacii qiiq uu ka kacayo waana tan keentay in dadka badankooda markiiba muuqaalo ay kasoo duubaan adduunkan wuu isbedelay meeshii jug yar ka yartaba mobile ayaa lagu soo duubaya waana tan keentay Israel ciidankeeda waxay isku dayayaan militariga ayaa leeyahay sirdoonkeeda in dadka arinkaasi aysan faafin laakiin hadda waxa la xaqiijinayaa in guriga oofaarkii Netanyahu diyaaradaasi droniska ay shab ay tiri ilaa ay haddana lama oga xaaladiisa in isaga uu ku geeriyoodo ama uu ku dhaawacmay ama inuu ka maqnaa laakiin sida Israel iyada ay sheegayaan warbaahintooda gaar ahaan warbaahinta militariga Israel waxay leeyihiin oofaarkii Netanyahu halkaas uu ka maqnaa sidaas oo kale xafiiska Netanyahu waxay sheegayaan in Netanyahu iyo xaaskiisa xilligaasi ay meesha aysan ku sugnayn run ahaantii maanta waxa ka jirta dhanka Israel oofaarkii Netanyahu in god hoostiisa xitaa laga dhaxraadinayo xaaladda ay ku xun tahay xisbiga ay markaan arinkooda banaanka ay keensadeen habeenkii xalay ilaa iyo maanta in aysan nasiino aysan siinin dhanka Tel Aviv gaar ahaan Haifa Kaysara sidaas oo kale Tel Aviv laf ahaanteeda habeenkii xalay duqeymo ayaa ka dhacay run ahaantii warbaahinta caalamka oo dhan aad ay u hadalhayaan جوكتان كيرتي غوريغا أوفاركي نتنياهو. ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيساريا. sida gabadha wariyaha ay sheegayso waxay tiri diyaaradda droniska waxay si toos ay u gashay guriga oofaarkii Netanyahu ka deganaa Qeysaariya sidaas oo kale xafiiska Netanyahu waxay leeyihiin oofaarkii Netanyahu halkaasi kuma sugnayn ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa quraanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir balaas 252 63477 956 ma ka mid tahay waalidiinta ku nool dalalka qurbaha ee ubadkooda la raadinaya goobo waxbarasho oo diini ah si aan dhaqanka iyo diintooda uga lumin tiknoolajiyada casriga ah ayaa sahashay in la helo dugsiyo ay gacanta ku hayaan macallimiin Soomaali ah oo aqoon sare u leh diinta Islaamka kuwaas oo ardayga wax ku baraya hab online ah meel kasta uu joogo macadka Al Khair Online Teaching waa macad hab online ah kugu baraya quraanka kariimka ah iyo culuumta kale ee diinta Islaamka bil kasta oo dhamaata ardayda macadkan wax ka barata waxa la siinayaa casharro iyo wacyigelin joogto ah oo ka baxsan duruustooda caadiga ah taas oo lagu kobcinayo diintooda si haddaba aad uga mid noqoto waalidiinta carruurtooda la jecel macadkan fadlan kala xidhiidh taleefanka gacanta ee nambarkiisu yahay eber 63 425 857 eber amba nambarada kale ee shaashada ka muuqda